qodobka labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo doorashada xildhibaanada. saad la socotaan xildhibaanada waqtigooda wuxuu kula yahay bisha socoto December 27. waa yani waqtigooda waa dhaca xildhibaanka muddadii la sii waa dhamaanaya. waxaan rabaa inaan ka hadlo xildhibaanada qaar kuraastii deegaan doorashadooda ka bedelay deegaan doorasho kala geeyay ayagoo fiirinaya ama fiirsanaya danahooda gaarka aga fiirinaya. marka waxaan rabaa inaan meeshaan kala hadlo kursigaani sida gaarka ay quseeyo oo tirsigiisu uu yahay hoob 30 oo ku fadhiyo xildhibaan Daahir Jeeso laban kaliya yiraahdo. saad la socotaan kursigaas deegaan doorashadiisa wuxuu ahaa asal ahaan dowladdii gacaanka buuliburto ahaa, laakiin burburka kadib dalkii markuu qaatay nidaamka federaalka markuu qaatay kursiga waxaa la geeyay caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle Jowhar. marka kursiga maalintii la xawilayay ama la bedelayay xildhibaanka ma uusan kala tashan odayaal dhaqameedka iyo aqoonyahanka kursigaasi uu ku matalo, laakiin asaga iyo dad qaas ah oo dad gaar ah oo ay ilmo adeer yihiin ay ka wada hadleen ay wadanahooda gaarka fiirsanaya. kadibna kursigaas waxaa la geeyay beledweyne. dhib ma laha beledweyne ha la geeyo ama ha la geeyo buuliburta ha la geeyo, ergooyinka waa sidii hore maaha. doorashadu qof cad maaha, waa doorasho dadban waay sidii hore oo hadan tiradii la kordhiyay 101 oo koox. waxaan rabaa marka inaan halkan kala hadlo dadka kursigaasi lagu matalo inaan xaqiiqda u taabto. xildhibaanka maalin hore wuxuu la fadhiistay qayb ka mid ah bulshada kursigaas ku matalo la fadhiistay oo makahiila qayb ka mid ah la fadhiistay asigoo ka codsanaya in mar kale jaanis la siiyo. asigoo ka codsanaya horta qofka markuu illiterate yahay ma dareemi karo yani waxaa uu cad waxa dantiisa u cad uma cad dadka uma cad. shirkii maalin hore waxaa la soo sheegay in dad aqoonyahana meesha joogeen la weydiiyey intii kursigaas uu hayay ama uu ku matalayay reerka waxa uu qabtaa la weydiiyey. dad aqoonyahana waxay weydiiyeen 12 sano meesha fadhisaa maxaad scholarship dad u geysay. xildhibaanku wuxuu ku andacooday qof meeshaan fadhiyo oo scholarship aan soo weydiisan ma jiraan. xildhibaane gobodfalada aad gashay waad ogtahay, adii laftigaa waa ogtahay. aniga shakhsiyan ahaan waxaa xasuustaa koorna document ku keenay anoo raadinaya waagaas scholarship aan raadinay shakhsiyan. shalay waxa ku andacoonaysay qof ii keenay eedda waxa uu soo jeedisay dadka kursiga kugu matalo, laakiin waa xasuustaa hotel SYL in badan ku kulannay maqaatiyaal nooda jooga maanta oo la helay. waagii dowladdan hadda jirto Xasan Cali Khayre oo xukuumaddiisii bilowgeeda waxaa jiray wasiirkii waagaa markaa ahay waxbarashada Cabdiraxmaan Abu Daahir in haddee xildhibaan aan dukumentiyada ku keenay aad igu tiraahday waxbarasho waxaan ku keenaa dalka dibadiisa ah, bacdeen aniga waxaan kala qabsado waa la soconaa. wax dhibna ma laha, jaanisan ku siinay halaasi ma aan keenin buuqan kuu furay waayo waqtigaaga waxba kaaga dhimna. xildhibaanka gobodfalada kale oo sameeyay waxaa ka mid ah oo maanta dad markhaati nool loo haayo. mid ka mid ah dhalinyarada ku matala beesha ilaahu naxariistay markii injineer Riiso loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir maayarkaba wuxuu soo dhacsaday kursi degmo soo dhacsaday gudoomiye degmo walo bacdigeed ugu dambeyn lagu xiray saxiixa xildhibaankiisa. xildhibaan waxaad sameysay iyo cuniga dhalinyarada ah soo dadaalay wixii soo dhacsaday waxa ku sameysay waa la socotaa, waana markhaati nool waa maanta magaalada waa laga helaa waa kontaktiyada siin kara qof walba xogta raba. waxaa kaloo ka mid ah gobodfalada reerka u geysatay koonfur galbeed hadda dhow ahayd mid ka mid ah dhalinyarada aad ku matashay kursigaas inuu soo dhacsaday kursi wasiirnimo inuu soo dhacsaday. adiga iyo ninka kale oo hay'adda warda haysto waxaa sameyseen waa la socotaan inaad cunugii daba marteen aad kursigii soo dhacsay wasiirnimo aad ka baabi'iseen aad soo qaadateen kursi wasiirka xogeen. gobodfalo intaas waa weyn iyo kuwa hadda ugu dambeeyayba reerkan u geysto waa curyaan reerka. waxaan rabaa inaan u sheegay marka dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo odayaasha haddii waa aragtaan qof waqti la siiyo waqti ugu habboon la siiyo Daahir balkay Daahir waqti qof la siiyo waqti ugu habboon la siiyo 12 sano kursiga ku fadhiya ma jirto qof maanta wax uu qabtay ma jirto. 12 sano wuxuu ka shaqeynayay walaalkay Daahir dadkan dib u dhacoodii curyamintooda ka shaqeynaya. waan garanaynaa
hadda ka horna shaqaale la soo siiyay gobolka ah 15 kursi la soo siiyay meesha ku dambeysay waan garanaynaa inuu kuraastaas gatay waan garanaynaa marka waxaan rabaa odayaasha dhalinyarada inaan la hadlo aan ku yiraahdo walaalayaal oo qof illiterate ah inuu xil sii hayo 2020 waa wax nasiib darro ah waxay nasiib darro nugu sii tahay anaga nugu sii tahay kursigaas anaga uu nagu matalo ninka walaalkeena waa dadku waa badan yihiin markii la dhaho maanta makaayila markii la hubo la dhaho waa tiirka beesha waa udub dhaxaadka waa aqoonyahankii beesha waa indergaradka ka buuxo way dhamaatay waqtigii qof illiterate ah mas'uul oo dhiibinaya way dhamaatay daayir waxa uu sheegaa sanadkan dadka soo wada jeeda waa baraarugin dadka walaalow in walaalkii waa tahay xildhibaankii ganoo tahay walow xushmad aan ku hayno sharaftaada ilaaliso 12 sano iimaankaaga ha ahaato kursigan ha isku ceebeena ku soo tartamay maanta arkay bardoon inuu ka dagay ku leeyahay xildhibaane intaas sano nin waxa tahay oo khabiir dhanka siyaasadda tahay hadda wixii ka dambeeyay inaad jaanis aad siiso dhalinyarta aqoonyahanka ah akademiga ah isku day sharaftaada ilaaliso wax dib ku dooranaa jirin makaayil Umar waa tashtay lahubana waa tashtay marka sharaftaada inaad ilaaliso aad jaanis u siiso dhalinyarta akademiga aan ka codsanayna odayaasha iyo dhalinyarta kale ergooyinka hadda nasiibka u helay inay doortaan waxa ayna kula talina walaalayaal mustaqbalkiina meesha ku jiro hala dantiina fiirsada dad illiterate ah kursigan yaa la keenin dad oo ahdaaf gaar ah wata kursigaas lagu soo aaminin maanta talada gacanteena ku jirta ha noqonina maliibaaniyaasha lagu liibaan ha noqonin keena dad academic ah oo dadkan dhibaatada ka bixin kara keena dad la jaan qaadi karo siyaasiyiinta dhigooda meesha hala keeno annaga hadda aqoonyahankeena waxaan mar walba diyaar u nahay qofka meesha la keeno academic ah inaan la shaqeeyno si hagar la'aan u la shaqeeyno oo hiil iyo hab la garab taagnaa wad ma santii waa talo aan idin soo jeedinayo dadka odayaasha ah iyo dhalinyarta ah dawladdan sankan waxay aad ugu shaqeysay in dhalinyarta fursad loo siiyo maamulka dawladnimo in loo jaanis loo siiyo laga faa'iideysto waqtigii dhalinyarada waaye isbedel ayaa jiro illiterate waqtigiisa waa dhamaaday academic arabnaa samkan academic meesha la soo saaro qof academic meesha la keenana dadkan horumarkooda iyo waxa kii u ah horusocodnimadooda asaa ka shaqeynay qof laakiin illiterate ah horumar uu ka shaqeyn wala horusocodnimo ka shaqeyn dib u dhac ka shaqeynaa marka daahirna waa fariinteedu waa u gudbiyay inuu de sharaftiisa ilaalsado isaga laabto marka hore UK ku yimaado UK isaga laabto dad meeshaas oo aqoonyahana meesha academic meesha dhalinyarta uga baxo ma santihiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh